taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan taliyaasha saldhigyada magaalada Berbera iyo raxanta ciidanka ilaalada xeebaha ayaa saaka kormeer ku soo maray xarunta guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada Berbera waxaana ay halkaas taliyaha iyo saraakiishu ay ku soo bandhigeen qalab casri ah oo ay raadaal ka mid yihiin oo lagu rakibay qaar ka mid ah doonyaha dheereeya ay isticmaalaan ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Sarreeye Guto Cabdi Xirsi Ducaale ayaa ka warramay qalabkan lagu xiray hadda lagu xiray waxa loogu tala galay ilaalinta badda marka loogu tala galay wuxuu ka kooban yahay radar electronic chart radiogi oo VHF calaamadihii navigation-ka weelada oo leerkii casaanka iyo leerkii green-ka bay leedahay labada dhinac ka kala yaalay marka wax wal oo maxaan ku yiraahdaa qalaba oo la saaraa waxay anfacayaan badmarinta ayay ka anfacayaan waxa weeye inaad lumin inaad waayin taarga waxa aad doonaysay shayga doonaysay badda ku aragtay inaad waayin oo markiiba uu ku hagayo radarku uu ku geynayo marka insha Allah waxaanu kaga hawlgalaynaa badda markaanu kaga hawlgalno waxay noqonaysaa bad ka nabad qabta wasakhayn ka nabad qabta kontrabaan ka nabad qabta kan nabad qabta burcadbadeed kan nabad qabta argagixiso kale kan nabad qabta kalluumaysato sharci darro ah taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waxa uu tababar ku saabsan dhinaca isgaarsiinta uu furay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga Berbera Axmed Saalax ayaa halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa marka aad iyo aad baan ugu faraxsan imaantika noo timaadeen waxa farxad weyn oo aad seminaarka ina furtaan kaasoo loo furayo saraakiil xigeen iyo badmaaxin ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha soconna doona muddo 3 maalmood waxa aad iyo aad wax loogu farxaa in nimaanka ciidanka loo kordhiyo tababarada iyo aqoonta kor loogu qaado taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Xirsi Ducaale oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa la dardaarmay saraakiisha uu tababarka u furay laashashka aynu hadda haysano qaar baynu raadar ku rakibnay oo hawlgalayo oo si toos ah hawlgalaya marka maabkaas sida ka muuqata xeebta inta dharka leeg ee afarta meelood oo qaybinay waxa weeye waqtiga ay noo saamaxdo baddu bil misal waqtiga jiilaalka aan ahayn waqtiga xagaaga baddu ka xasan tahay waxaan uga hawlgali karaa si kalsooni leh oo aanu ku kalsoonahay wixii soo galay inaanu ka qaban karno oo mustaqbalka aynu hogaaminaba inagu gobolka oo dhan marka maadaama idinka la idin diyaarinayo mas'uuliyadda weyn aad qaadaysaan hadda tababarkan u dhaga furaada oo si fiican uga faa'iideysta oo dhageysta taliyuhu waxa uu sidoo kale u soo jeediyay wadamada mandaqada ku yaala inay si guud ay u ilaaliyaan amniga badaha ay wadaagaan waxaana taliyaha hadaladiisii ka mid ahaa dadku cadowga wada leeyahay cadow isku mid ah jira wixii cadow isku mid ah inaga iyo Djibouti iyo Puntland iyo Kenya intuba waxa weeye inaynu si wada shaqeyno cadawga isku midka ayaa laynooga baahan yahay oo aynu iska wada difaacno oo aynu information ka isdhaafsano iyo warka isdhaafsano oo aynu wixii ku socdana uga digno wixii nagu soo socdana inooga digaan Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland Berbera.